عبد الله بن حذافة رضي الله عنه markii boqorkii Ruum soo xiray waxa loo bandhigay laba shay in boqortooyada Ruumta la kala badh la siiyo oo diinta islaamka uu ka baxo صحابي جليل تلميذ من تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام قسيس كيف أقول عيدا كنك وتا والنبي محمد أرضي ديسي أرضي كمدا حنقدلين نصرانية دو بندق وحلي وحو دين تاكو دور سكرنا هلا صيو سن السارة إسلام كأقول سعوتا وسد عن سبيل الله يقول نقضو لكن وحينا كور قبل نبي محمد صحابة ديسو إيمانكو عرب كما الدولي الله إيمانكو قلبكو دولي الله هل دولي الله قلبك وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها إيمانك الصحابة ما هم من عرب كدولي الله من ما أدوية لا دافسن كرماها ومن قلبكو إيمانكو فريستي وين إلهي كو تعلق سن هو يا بقرك ما كلها تاين النصرانية ده سوا قلي boqortooyada kala barkeed baan ku siinay markaas uu qoslay wuxuu boqortooyada oo dhameestiran oo waxba laga reebin iyo boqortooyada carabi ay haysato hadii halka la ii dhigo oo la igu yiraahdo diinta islaamka ka baxo dib ugu noqo wallahi inaan yeelin buu ka yiri wallahi ma facaltu buu yiri darfata ayn diinta islaamka ka baxo iskaga noqo waxa soo mulkiyeena qaado ma yeelayo buu yiri boqorkii baa ku yiri dawaan ku dilaynaa دوابا نيحدنا هاي هذا يدل سر ونيحدنا إحدى الحسنيين بيسوق يعني يكون إما النصر وإما الشهادة إما إن يقول هلان أو تمكيني هلان وإلهي قرقار قيس الله بلن قادر عنده كو أركان إما إن الشهادة هلان فردوس يتقان لو شهاد بيد وحبوه ما أركان وحال الله السماء مركا بغركي أمر وحكو بحيي دريوا وين وصليد أو كركرايا ayaa hortoodii la keenay laba nin oo muslimiintii inta la soo qaado isaguna arkaayo ayaa la diinta islaamka ka noqda kama noqonay nabi yiraahdeen markaas la qabto labadii nin basda loogu tuuray qof bini aadan oo nool oo dhari saliid oo karkaraya loogu tuuray ka warrama subhanallah isagii baa markaa la dul keenay oo xidhan ka noqo diinta islaamka oo nasraaniyada qaado markaas uu ma qaadanayo lilma ka daadatay markaas boqorkii lagu yiri hadduu cabsoodayo waxaan u maleynayaa inuu gaaloobayo hadda markaas loo bandhigay nasraaniyadii oo hay gaalow markaas uu ma gaaloobayo maxaa loo idaa lagu yiri markii dabka lagu dul keenay dheriga karkaraya hal nafba igu jirta way iga baxaysaa mar kaliya waxaan tamaniyay jirkayga inta tin ku taala in la tirin lahaa oo intaas ruuxa la igu abuuri lahaa oo mid walba intoo mar halka la dul keeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaniyoon haysano ka ooyaya buu kaydi daf kaliya maaha kuma yalna fa in la igu abuuri lahaa oo mid walba halka intoo la dul keeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaninayaa mana haysta buu kaydi boqorkii baa yidhi kan dilgiis wax noo tari maaye haska sii dayno waayay sii daaya ma kula tahay buu kaydi madaxa inaad iga dhunkan وانا كسي دينه مركز المقال برمض حق دنكدا ساقي بس لا شوريست شرط بو كخدو وخو هدي مسلمين تا الى خدن ادي سي ديني سيدها وان كا دنكن هدي كلا كا دنكن ما يبو كو يدي مركز وحاجه ديغا دنكو مركز المقال برمض حق دنكدا انا اصحاب النبي محمد كمدا رجاه ويسي دينه يا سوما هنا وكا دنكن الا بريبه جهاد بان كسو علينا كلا بحمينا عجيب أصحاب الرسول سو قالان عمر بن الخطاب سو دweeyay inuu gaal madaxa ka soo dhunkada ayaa u sheegay baa la yiro ragii la socday baa Umar ku yiri Abdullah ibn Hudaafa ha dhunkano ha salaamino ha soo dhaweyn waayo gaal buu madaxa ka soo dhunkaday inakana hebel dibadu u baxay hebel dibadu u baxay hebel hayad buu la shaqeeyaayo iskugu toostay قالنا لا شقيسو ايا مانتا مسلمين هرمر اركان قالدا دلكوغا انا تغنو ايا مانتا مسلمين هرمر اركان
iyakuna raggii la soo daayay dhunkashada lagu soo daayay baa Umar kule gaal buu madaxa ka soo dhunkaday ha salaamin Umar baa yiri balukaadii ha wareystay sidee ku dhacday inaad nin gaal madaxa ka dhunkata wuxuu iyaka ku soo daayay buu yiri si marka uqdadii yareeda qalbiga u gashay Umar uga biyay buu yiri haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra's Abdullah ibn Hudafata wa ana abda'u bidhalika buu yiri qof kasta oo muslima waxa xaq ku abuuri Umar in maaragtana Abdullah ibn Hudafa oo madaxa ka dhunkado anigana ka bilaabayo buu yiri anigana ka bilaabayo ilaahay bay ku xidhnaayeen islaamnimaday ku xidhnaayeen addoommo waxay noqdeen ilaahay uu iska leeyahay sidii ilaahay doonayay markay yeeleen sida iyakuna ay doonayeen baa ilaahay adduunka u yeelay sidii doonayeen marka noloshan adduunyada macaankeega raaxadeeda jannadeeda waa ilaahay macrifadiisa alladina aamanuu وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إلى هيري الذين آمنوا كو إلهي رميي قلوبته طاعد إلهي ذكرك إلهي أي كو حصل يسو إلهي بعد ألا انتبهوا إلهي بعد إنه نصلحين يا إلهي بعد إنه يريا إلهي بعد إنه خير ميريا ولا ينبئك مثل خبير فاسأل به خبيرا ومن أصدق من الله قيلا إلهي بعد كو ورما يأكله warqalbigii naas wax kala ku xasilay maayo aniga macrifada qalbigiina ku xasilaya